hay-adda khayriga ee Haro oo ka mid ah hay-adaha muxsiniinta ee taakuleeya dadka danta yar ayaa maanta dad barakacayaal ah u qaybisay raashin ay ku soomaan bisha Ramadaan oo isugu jira bur, bariis, sokor, saliid, timir iyo lacag cadaan ah oo $30 ah. Kaamka Geedaaley ee duleedka magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana raashinkan soo sadaqaystay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Mareykanka, taasi oo loo soo marsiiyay hay-adda khayriga ee Haro. gudoomiyaha kaamka Geedaaley Cali Qoodey ayaa isagu ka mahadceliyay deeqdan la soo gaarsiiyay. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. Hay'adda Haro maanta waxaan soo kaarisay kaamka Geedaaley, waxay soo gaarsiisay bur, bariis, sokor, saliid, timir iyo lacag kaash oo $30 ah. Kaamka waa Geedaaley, jaaliyadda soo dhiibtana waa mahadsanyihiin. sidoo kale qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah ee loo qaybiyay deeqdan ayaa iyaguna ka mahadceliyay una duceeyay dadkii soo dhiibtay in Ilaahay bedel khayr qabo ugu bedelo. Ilaahay ma hadda saa iskale waxaan ka soconaa kaamka Geedaaley, waxna sii hay'adda Haro, bariis, bur, sokor, saliid, timir, lacag $30 ah. waa mahadsan yihiin inta muslim ay soo dadqaysatay oo soo dhiibtay hay'adda iyo dadkina soo gaarsiiyay. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha hay-adda khayriga ee Haro xafiiskeeda magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Cabdiraxmaan Khaliif oo faahfaahin ka bixiyay ujeedka ay u bixiyeen deeqdan oo ay ka lahaayeen. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bishii afraad 2021 ilaahay mahadiis deegaanka kiiloomitir 13 ee duleedka magaalada Muqdisho waxaan ku qaybinay ifdaaru saa'im aan ugu qaybinay dad barakacayaal oo masaakiin ah. waxaan siinay qoyskii walba 25 kiilo bur ah, 25 kiilo bariis ah, 25 kiilo oo sokor ah, saliid, timir, lacag kaash ah oo $30 ah. hantidaas ayada ah waxaa soo dhiibay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Mareykanka. maaragtay alxamdulillah waxaan ugu talagaleen dadka masaakiinta ah ee saa'imiinta ah inay ku afuraan bishaan soon. qoys walba intaasaan siinay, waxayna soo mariyeen hay-adda Haro. alxamdulillah si nabadgelyo inoogu dhamaatay. dadkii soo dhiibay sadaqadaas waa u mahad celinaynaa mar labaad iyo mar koowaad iyo mar saddexaad. waxaana leenahay jazaakumullahu khayr. wixii khayrood ku dalbayseen Allah idinku siiyo, wixii sharood ka baqayseen Allah idinka qabto, idinkii awlaadiinaba Allah idinku ilaaliyo. waa sadaqa aad maarta xilli munaasaba oo bil Ramadaan ah aad bixiseen, aadna siiseen dad munaasaba oo u baahan oo dad barakacayaal ah. saad u jeedaan waa dad haween iyo ciyaal iyo dad waayeela ah. falillahi alxamdu. dadkaas aad uga farxiseen, waxaan rajaynaynaa in Ilaahay idinkaga farxiyo. aad baad u mahadsantihiin. si kastaba ahaatee hay-adda Haro ayaa ka mid ah hay-adaha sida weyn gacanta uga geysta u maciinida danyarta iyo masaakiinta.